شعيب عبد الله محمد ومجلس afgarashadu yahay Axmed waxa uu al-shabaab kaga biiray diinsoor 2014 halka Saadaq Cabdi Jabbaar Umar Xuseen oo caan ku ah aqoono loo xiray al-shabaabnimo 2 jeer sanadihii 2015 2016 Shacayb xirfadda jaasusnimada ayaa asalkiisa loo diyaariyay waxaana la baray dhaqanka dadka iyo kasbashadooda waxa uu diinsoor ka qabtay inuu dabagalo cid kasta ee soo gashay magaalada dhaqdhaqaaqeeda waxuuna il gaar ah ku hayay busteejada diinsoor al-shabaab ayaa laga faramarojiyay diinsoor sanad kadib waxayna noqotay magaalo go'doonsan 2017 horaantii February ayuu la yimid reerkiisa Muqdisho oo ku adkaatay nolosha diinsoor Muqdisho kadib waxa mar kale al-shabaab inuu la shaqeeyo ku qanciyay mid la ilmaadeer ah oo lagu magacaabo Deeqo macallinkii dilaaga ahaa ee ilka casa ayaa lagu soo xiray waxaana xirfadda dilka gaadmada ah lagu baray Muqdisho dhexdeeda waana meesha ay ka timid waan ku naafiyay dhamaystir saddex qof oo lagu kala dilay suuqa weyn ee Madiino iyo dhabarka dambe ee isbitaal Madiina ayuu daawada ka ahaa iyo dhamaystir laakiin wixii ka dambeeyay macallinka ayaa korjoogteen iyo hubin ku hayay Shacayb waxa uu noqday dilaa Muqdisho ku hogaamiyay koox kale oo ka madax banaan macallinkii dilaaga ahaa oo isna tiirkan ku baxay 9 November 2020 Shacayb waxa gacantiisa ku maqan marxuumiinta kale ah Xuseen Macallin Cali Jilico Juus 2017 Yuusuf Cabdullaahi Maxamuud December 2017 laba xidig Cabdullaahi Ibraahim Xasan Gambar 2018 May 5 iyo Cabdi Cali Maxamuud November 2018 Saadaq Cabdi Jabbaar Umar Xasan ayaa isna diray Allah u naxariistay Maxamuud Xasan Ibraahim oo ka tirsanaa militariga Soomaaliya Maaj 2019 Shacayb Cabdullaahi Maxamed iyo Saadaq Cabdi Jabbaar Umar waxay gacanta dawladda soo galeen Shacayb iyo laba kale February 2019 iyagoo Allah ku soo fashiliyay dhagareelada macsanaayeen maama Baarlin Cabdi Warsame oo xilligaas qaad ku iibinaysay Muqdisho halka Saadaqna la soo xiray isagoo gacmaha dhiig ku leh Maaj 2019 labadaba waxa lagu xukumay dil toogasho November 14 2019 waxa xilligaas isku gal ka ahaayeen fadhiga maxkamadeed Maxamed Ismaan Axmed Umar iyo Ismaaciil Maxamed Awees oo lagu xukumay cimrigaha ku furta xabsi daa'in ah 3 sano oo maalmo la kadib maanta ayaa laga oofiyay xadkii qisaasta ahaa waxaana toogashada kadib fagaaraha tiirka cadaaladda ee iskool buliisiya kula hadlay warbaahinta Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka xirlaaliyaha ciidamada qalabka sida eedaysana Shacayb Cabdullaahi Maxamed Axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu si bareer ah u dilay kow marxuum Saddexle Xooga Xuseen Macallin Cali Jilico taariikhdu markay ahayd 28 bishii 6 2017 labo marxuum Gaashaanle Booliis Yuusuf Cabdullaahi Maxamed taariikhdu markay ahayd 9 bishii 12 2017 saddex marxuum laba xidigle Booliis Cabdullaahi Ibraahim Xasan Gambar taariikhdu markay ahayd 5 bishii 5 2018 afar marxuum Cabdi Cali Maxamuud taariikhdu markay ahayd 27 bishii 11 2018 eedaysana Saadaq Cabdi Jabbaar Umar Xuseen waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu dil bareer ah oo gaadmo ah ku dilay marxuum Dable Xooga Maxamed Xasan Ibraahim taariikhdu markay ahayd 31 bishii 3 2019 degmada Dayniile waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd 14 bishii 11 2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 24 bisha 10 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq madaxda garsoorka ciidamada xafiiska xeerlaalinta saraakiisha amniga ee u xilsaaran fulinta hawshan barakaysan iyo marti sharaf kale ayaa halkan joogay Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho